بسم الله الرحمن الرحيم. ولي واحد آمسنتها بنتي سدح سنة اللي جوشة يا داد آمسنتها سعيد عبد الله الدني يا حمدوي وحشيخ محمود وكلها الله يا دورشوين حكومة عصب على صوت الصيا حمزة عبد البرال الرضية رئيس وزراء وحكينية أحمد مدوي وحمان ديدايسن يا سعيد عبد الله الدني oo isaga basida lagu doortay Xasan Sheekh Maxamuud goobjoog u ahaa markhaantira uu ka ahaa qodobkaas iyo khamiista shirka waxa uu ku soo dhamaan doono iyo xaaladda guud ee dalka inta aan ku dul istaagin si qoto dheerna aan ku fahansin waqooyi bari Soomaaliya iyo Saudi Arabia oo heshiis ku kala saalaas qoray base military waa ku dul istaagay heshiiskaas waxa uu qusayo lacag inta ku kacaysa ku dul istaagaya xaaladda guud ee waqooyi bari iyo heshiisyada caalamiga ay galaysa iyadana qodobkay u dambeeyo qodob xasaasi ah kaasaan kugu qaada dhigaya waaya inta aan ku hormarin nimanka qodobadooda iyo doorashada waxa maanta airportka Muqdisho muuqaalka wax yar la daawo kuwan ma lacag inta qaad kuwan sagaa lacag la daawo حتى لو علي كان يلوغان lacag laguma qaaday qofkii ku qaado waa dambiile waa la xiraaya hadduu ahaan lahaa Saciid Cabdullaahi Dani ama Axmed Madoobe mar hore waxay dhihi lahaayeen musadan ba ka qaaday waa la xisaabtamaya waa la xirxiraya dambi baad gasheen inaa lixdan ka qaadaan been akoonadana ku soo shubtaan siyaasadda waa uga dambeeyay ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre inta wuxuu ku soo gaaray waxa weeye oo magaci sharafta daarad kor ugu qaaday oo tugna looga aaminsanaan lahaa oo maalin kasta uu noo dhaqdhaqaya waxa weeye waad kuwan la matalaya de markhaanti allaad ka qol loogu talagalay 20 qof 40 qof ku galeen bay ku leeyihiin mukeefkan laga dansaday iyagoo shiirka iyo uskaga iyo make-upka balaayada marsan yihiin iyo xaaraantay cunayeen dhuusa iskala daalay qashin bay ku leeyihiin mukeefkan laga dansaday wuxuu ra'iisul wasaaruhu meesha u tagay terminal cusub oo xukuumadda dan qaran ay ku soo kordhisay airportka aan cadde terminalka waxa ka dagaya xamar maalin kasta waxay ku sii tilaabsanaysaa horumar midka caalamiga ah iyo caalamka la jaan qaadaya terminalkaas waxa ka dagaya dadka ganacsatada ah ee VIP da ah ganacsade markii lagu leeyahay ma aha nin laba container soo dagaan ma Axmed Nuur Jimcaale iyo nin kala dhoo daabshiil oo kale ba ugu yar wax bukun garaysan kara siyaasiyiinta waaweyn ee iyaguna sida madaxweyne ra'iisul wasaare kuwa beesha caalamka ah ba iyagana bukun garaysanaya terminalka cusub buu maanta ra'iisul wasaaruhu gacanta ka jareeyay waa horumar shacabka 5 milyan ee magaalada Muqdisho jooga iyo airportka aan cad u soo kordhay maalin kasta tallaabo cusub ba dadka reer Muqdisho ay ku waabariisanayaan waxa amaankii soo noqonaya airportkii laga shaqaysiinayo terminal cusub oo la furayo iyo dadkii lacagta lagu baadayay oo ra'iisul wasaaruhu maanta uurka uga duceynayaan halka labada isaga maalin kasta propagandada ka faafisay ay taagan hadda la bedelaya iyo hadda saa la yeelaya ay shacabkii Puntland iyo Jubaland abaaro faamiladu waa baabeen dad ma noola ciidan mishaar ma qaato shaqaale hadda maanta wixii xildhibaano meesha taagnaa qodobada kale inta aan ku dursaagay shirka xildhibaanadii maanta meesha taagnaa ma aaminaysa xildhibaan aan $2,500 xalay loo dirin ama $3,000 ma jiro wixii xildhibaan maanta halka taagnaa nin aan lacag loo dirin meesha ma soo istaagin xataa fiiri hadduu ninkaani saameyn magaalada Muqdisho ku leeyahay meesh Sheekh Shariif ku lahaa waa dhisaya ma imaan khayr ayaa ka kaamira jecel miyaa aragtay maanta khayr ma imaan Cabdiraxmaan Cabshukuur xildhibaan ma aha ma uusa imaan ninkan marka waxa xalay kaliya ka baxday haddaan ku dhaho ma aaminaysaa 4 milyan iyo 500 lacag u dhiganta ba xalay ka baxday bas in la soo dhaweeyay farxadda wajigiisa ka muuqatay iyo reereynta ka muuqatay war maxaa waxa soo dhaxal cadeyn ba ku sinaya aniga baadul baanta waa tolkay saciyaal anu kama wasin santi kama qaadan maalna mowqifkaygu isma bedelin waxaan kitaab ku maray inaan maalna dadkaas waxba ku darsan mabda'ayga iyo qadiyadeedana inaan maalna munaafaqayn 10 sano waxaan waxa kumanahay laaluush baan ku siinaynaa dadkaas koonfur jooga magaalada xamar jooga caasimada degan suurad xume harumarkooda ha ku dhibo habaar al-shabaab baa qabsanaya dheh dagaalka al-shabaab waagi maxaad ula gashay anu ma waji argagixisaan leey ma Yacquub Siyaad baa argagixisa weligii soo agmartaa laga dhaadhicin kara meel kasta oo Jarmalka dacwad bay iga dhigeen meel kasta airport kasta dacwad iga dhigeen meel intaas 10 sano waxa uu xukumanay oo intaas xataa gurigayga la yidilay waxay wax kale dadkaas koonfur jooga oo xamar jooga oo Soomaaliyeed afkaagu ha gaar Saciid Cabdullaahi Dani hooyadii waxay ku dhashay 9 bilood ana hooyadii 9 bilood bay u dhashay
kuwii wasiiradii dadka u caayi jiray wasiirkii caydiid mee wasiirkii dhamaa iyo kuwii xukuumadda ku jiray ee dadka caayay dhammaantood waa iska reeb tiktokaradii magaalada muqdisho joogayna waa la soo waayey nakata markaasaa waxaa lasoo raray baasuukayaal waxaa lasoo raray gabdho saasaa gabdhaha waa la naqaynaya saasaa laleeyaha adigu waa buuran tahay afuul adiga caataa tahay ka leexa meesha waxaas xamar laga geen karee waree waxaas xamar laga geen karee meeshu waa caasimada saasaa loo naqaynaya markaasaa ciidanka waree adigu tuuto falxum baa wadataa ka bedela mid cusub u xira waree qoriga akaa tirtir markaasaa wajiyada farxadda xalay ma aanu seexan mee marka dadkii 3 sano loogu sheekeynayay xamar cadow baa jooga hawiye waa cadow u tagi mayno xasan sheekh baa nagu soo duulay yaan xamar la aadin wasiiro xamar baa soo martay waree xildhibaan xamar baa laga soo wacay adigu yaaqub siyaad baa ku xiran tahay ha xamar baa nalaga soo duulay kuwan mucaaradka xamar baa lacag siiya na wixii riwaayadii raqiiska waa soo dhamaatay maanta Soomaa muqdisho maanta ninkii dhex taagan yahay Soomaa waa yahay shirkan hadda ku sheegaya marka waxa ka soo naasacdaanay dhageyso qodobka si fiican u dhageyso waxay suuqa gashteen xasan sheekh maxamuud inuu nimankan kala hadlayo doorashooyinka sawaabeen xasan wareysi uu bixiyay aljasiiru wareysi siiyay wuxuu sheegay inuu yahay xasan sheekh maxamuud musharax madaxweyne Soomaaliya uu sheegay xasan sheekh maxamuud inuu yahay waaya سيد عبد الله إدري شري بطلع مشرح واها رجع السياسيين isaga la aha oo aniga beesheed aha Ciise Maxamuud afku ka garaac waa baad dhulbaantay isagu jifi anaga kamid ah ku filan si awood maxaa u yeelay bawarka maxaa u yeelay honka iyo toban technique wata Puntland markuu dhaxmaray waa qaylada yeeraysa Puntland habarta uur leh ilmaha ka soo dhacay waxa soo dhan waa xukunka iyo qalinka wadada dambahayo waana fahantaan qodobkaas xasan waa musharax سعيد عبد الله إدري مركو مشرحها سو قدي دورشة يا سوقري ما معارض كلا سوقري ملاح وامي يا اللي أنا صحري ملاح صحري يا دورشة قبته معمولي ملاح معمولي دورشة يا إس دورتي سيا إس دورتي حاسس شيء محمود نين أنت هسميه أنتوا هرفر يستو ميو دورشة كلا الله هوية مين يستبدين بوقفتها هوية مين صحاب قرين بوقفتها هوية مين سيد كم مريان سنة بوقفتها نمك عمر فينيش له oo Muuse Suudiyal xawle oo Axmed Daacad leh oo Caydiid ka dhashay oo Ilaahay Rabbi Raxmaan Beer ka dhashay Cabdi Qibdiid ka dhashay oo intaas oo sana xamar isku leeynayay dagaalka afar biloodka 30 sano dadkay ku dagaalayay oo intaas oo tiknikas ku samaysan jiray oo beerka iska garaac jiray soo nimanka ma kontan askari wax looga qaadi kara ma kontan askari iyo wiil yar oo boorso dhabarka saartay baa lagu cabsi gelin kara حسن الشيخ محمود نمكن دورشة وكره الله يمتشرته أنا كوا عدني هدو حسن الشيخ محمود دورشة كره الله جيب دم وقال دم الله يعني ما كهو داون قلب كلام هذا حوي وعي السوق قشتين إلى رئيس وزراء كان صنايع مروح على لي عيسى محمود على الصينية مروح على لي عمر محمود على الصينية مروح على لي عيسى محمود على كينيا دارات كلام نندو حكى لك خيرات كرسي أي أسعدان أو أي ليهن أنا ويتر أو يوم نقولين نين دارات أو قبل لحى oo ugaadeyna ku fadhiya Xamza Cabdi Barra kursi ku fadhiya shalay maxay farmaajo ahayd maxay ahayd markale saacid bay ahayd markale maxay ahayd yuulka disco bay ahayd markale waa maxay haddana waa Xamza waagi Cabdulli Maxamed Ali Gaas iyo xalweyste oo ma jirteen Xashi Maxamuud weytirada u ahaayeen oo marxuumiinta u ahaayeen Puntland dadka ugu qoriyooska badan bay ahaayeen dadka Puntland dadka ugu qoriyooska badan oo meeshan qoriyay ahaan jireen وايا مركا حسن الشيخ محمود رئيس وزراء وكلا الله يو ودد كانوا ويديني نينا اسم كيسي ودن لما اسمه ودن او علماء ودن او سياسيين ودن او تيك توكرز وتا حسن تيك توكرز وحو هيستا لما مليون هيستا كوان بقولكم يا بلا عريان بي تيك توكرز كحسن الشيخ محمود هيستو لما مليون يا 3 مليون فيوز كود وقاربا دور 10 مليون فيوز كود يا الحمر ما دد كاسا مركا waxa ku gaadhan camera iyo ku gaadhan raq aad ku gaaraysan waayay dagaal baa soo haray xasuustaan dib u celiya maanta dawladii Siyaad Barre oo dawlad daarood badhe ila madaxweynuhu maadaama uu daarood ahaa baa 15 sano SDF duurka ugu jirtay waa la soo gurgurtay maalma meel baa lagu soo dhuuntay maalma Muqdisho soo gal inta hawiyeeshu naga daawanay intaas bal ficilka aan sameeyno iyo qowlkeen inuu isleeyahay buu eegi maxaa la rabay inaan madaxtooyada intaan galno Siyaad Barre tunka soo qabanno
dadka ku hor gowracno ummadda markaas ama ra'iisul wasaare qaadano ama madaxweyne qaadane adigu roog soo jamaadeeyay oo meeshan xoog ku qabsada ahaan lahayd maalinta xamar soo galna waxa bilownay tuba kacbow waxaan bilownay naagala tumasho qayraad ruufiyaannimo madaxtooyadii shalay aan ka qanuudeynay oo maalinba midna looga yeerto 3 bilood bay UNC magaalada Muqdisho gudaheeda lagu aasaasay 3 bilood bis baa lagu aasaasay waan looga dowladda Soomaaliya meesha ka baxday nimanka marka jamaahaddii u dambeysay ahaa oo xasan sheekh maxamuud uu ka dhashay miyaa waxa nacaska ay caloosha weyn limaantayto intuu baasuukayaal 4 baasuuka iyo 4 baaloota dhabarka ku qaato buu xamar ku cabsi gelin kara ايشي وامي سنيكا دستور كديدي وسعيد عبد الله يدري دورشي لو كتب بدلان كو قبت نينكا دستور كديدي واحمد مدوبي ما نديد ما يستبع احمد مدوبي نين ما نديد هيستا هذا ليس انت ليق مقالك دما كو شيغي دوناي oo wuxuu soo wadaa markuu shirku dhamaado oo uu leeyahay sanataraa magacaabay isagii ma نديد haysan oo ya Allah beesha caalamka xasan oo ninkan sawirka kula galo wal xasan sheekh walaalo ninkan u yeer wal xasan sheekh nimanka hal mar Muqdisho hay yimaadaan ورنما كان والله دتك ما نبعه ورمقدشة نما كانوا واتشعليه ورلعق بي ودان قلب كيه انت عن شركة وعكوسة دمانية ولي كودر يستاجن فرينتا ودا مساحة ودرية باشا هوية ودرية هوية وحلا يعني سيد عبد الله يدرح كويس انه ولا لفلفكين وري الكوة العادية لفلفكين ناس كويس انه انا ويا لفلفية يا انا ويا لفلفية مرخانت وحا كاه صور كمانتا ونكاس كفر حسين ومغالا مقدشة يمادو ninka limbu wata lacag ah waana u dhuumataan beesha raxweyn baa u sheeganaysaan qaarkii waxa leeyahay adaa madaxweyne ah xasan sheekh maxamuud waxba ma kala oga xasan muxuu ogyahay xasan maan dadka ka dhamaaday hadduu magaalada Muqdisho ka baxaya hadduu ka bixi waayo guriga muujada shar cabdibilaah ku xareysan ka kale muujada sideed cabdibilaah ku diyaarinay qafla albaabeen ma gelinayna xasan sheekh maxamuud waxyaabaha uu ka helaa waxyaabaha lacagta looga cuno wey lacagta 60 milyan baa ninka meel u taala maalin ba 10 ha soo saar maalin ba 5 ha soo saar maalin ba 3 ha soo saar kuwa mas'uulka ka yaayna kuwaas samirka nabi ayub leey idin kale waxa la leeyahay samirkaas oo kale xasan u yeelataan way samirka yaa la garowe iyo kismaayo iyo hargeysa yaala ina reer Muqdisho idinku ina yeelataan way ma ogaateen ciidan nacabin dadku dhawaayda jeceliye hasiyasanina wallahi cadiim aan idin sheegay qof idan nacab inuu soo jirin baa qof kasta waa idin jeceliye u fiirso kii shalayda caayay xamar buu soo socda kan marka waxay ka soo waaya kan caytamayna waa mid waxay ka soo waayay wi inta maanta banaanka taagan kulli xamar buu socota waxay wax ku dhamaanayaan dadka ana u sheegay waa magaalada Muqdisho iyadoo waxaan ku tusaya hadda lacag baa lagu tagay Soomaa iyadoo waxaan ku tusaya nin kasta calanka Soomaaliya isagoo ruuxay magaalada Muqdisho ka soo dagay qodobka shirka uu ku soo dhamaanay waxa weeye wax natiijo ah in shirka ka soo baxay wax natiijo ah in ka soo baxay inuu shirkaas ku soo dhamaanayo 4 bilood kadib ama 3 bilood kadib guddi farsamo la magacaabay sababta saa loo sameeyay waa maxay midowga Yurub baa wuxuu bixiyay 128 milyan oo abaaraha Soomaaliya wuxuu ku xiray shuruud in la wada fariisto madaxweynaha iyo maamul goboleedyada fariisto firdhiye yimaado qorqor yimaado cali guudlaawe yimaado ninkii lafta gareenaha yimaado mulaax yimaado axmedoobe yimaado muungab yimaado xashan sheekh ra'iisul wasaaruhu soo fariistaan markaas lacagtaas nimanka xalaal u tahay inta ka horeysa xalaal noqon mayso 4 milyan 5 milyan 3 milyan baa la kala qaadanaya nimankaas wax kale uma tagayaan idinkay been idin sheegayaan way ogaan doontaan wixii idin leeyahay garaadku qodobkaas weey lacagtaas in la xalaalaysto kaliya magaalada Muqdisho loo tagayaa wax kale Muqdisho loo tagayana ma jirto qodobka halkaas ka gudbay waan ogaan doontaan shirkaasi ama lagu kala kacay waad maqlaysaa sawirka kaliya laga rabay bas in loo diro qoladaas Yurubiyaanka lacagtaasna ay u soo dhalaasho si xasan faa'iido ugu jirta nimankii 3 sano qanuuday hadee maanta xashiq maxamuud hor fadhiyaan guul siyaasadeed weyn buu joogaa isagana danba ugu jirto waxa leeyahay ninkan waa ogolaya wada hadal ninkan waa nin macaan beesha caalamku waxyaabahaas jecesha beesha caalamku nin qori wata ma jecla gaal ana la nool 12 sano la nool wada ka cilin badna ma jecla nin qori la ordaya gaal ma ogola gaal wuxuu rabaa nin sida xashiq kale af macaan buu rabaa xariif ciyaalka xaafada ah buu rabaa oo dun macaan oo maanta dhaadii la maagay siyaasi ah laakiin nin shadiknika hubka baasuuka noo soo qaada wallahi billahi tallahi waxaas beesha caalamka gaal cid ka been badan oo ka dhaqdhaq badan ma jirto waxaas oo kale isagoo ma jecla nin hambal ah oo umada isku wadi kara
oo loo arkay dimuqraadi oo bilada nabadda la siin karo dadkaas oo lala hadli karo bay oo albaabadiisu furan yihiin beesha caalamka jeceshahay libin bayna u tahay nimankii 3 sano iyo barka qaylinaya hadduu xamar ka soo dejiyey wallaahi bilaahi tallaahi hawiye iyo soomaaliba siyaasi cajiib ah baa u soo baxay oo ku dayasho mudan aya qodobka halkaas kaga gudbay waxaan dul istaagayaa waqooyi bari soomaaliya ma intaan qooyi bari istaagin horta qolada cisaaq hadday ku jeclaatay ilaahay baa kaa reebi karaa aad baan ula yaabay maalo tahay keenan xasan sheekh maxamuud baa wuxuu yiri Soomaaliland iyo Soomaaliya loo wada hadlaya waqooyi bari maamulka duruufta looga faa'iideystay war walaalo aniga maamulkayga ma iideyso khayr allah ku siiye hubba waxaas waa saanad maalin kasta ii degaya waxaas waa hub aan ranayay wey mar un waa kuu soo socdaayay qac waa kaa yeeraysaa shalay bay xasan sheekh maxamuud baa maxaabiis ka sii daynaya markaasuu aqoonsanaya xasan sheekh maxamuud baa maxaabiis oo ogolaadeen markaasuu wuxuu tegayaa laascaana tegaya maalin kasta waa igu wallacday sidii naag uur lebaad igu wallacday maamulkaas xunka ah ee ka dhisan garoowe ee xukuumadda naas iyo nikaax iyo qoladaas waalan ee hargeysa jooga aniga waa igu wallacdeen si caadi ad igu wallacdeen war aniga Soomaaliland ma ahi Soomaaliland waxba kuma darsan Soomaalilandna ma aqaani awowgeyna ma saxiixin anugu nin waxaan ahay maamulka waqooyi bari Soomaaliya ah maamul saddexaad oo daarood wey anaa ku cadeynaya wariyelka waa cadeeya iyo waxa iga maqan nin soo dooranaya oo soo raasanaya oo aan cinda ku raali gelinayn baana ay igu kalifin intay laba fil iska taabato waxa maxaabiis xiran 400 bayna cagta mariyo wallahi hay igu kalifin danaaga Netanyahu waagay waxaagay galadaada iyo xasan maxamed idinka erir Soomaali isla maxaan igu soo warwareegaysaa la soo dag rasaas la soo dag Saudi Arabia base military laas qoray kasi Turkiga base military iyo dakadsi shidaalkaaga ceelkii hol iyo nugaal area qodo aniga danaaga ku mashquulsan waa ka qarin maayo ku soo weeraray waa ku soo weeraray kii ku soo weerara oo tii hore waa kugu yaraanaysa afkaaga waa iga haysan laada maalin kasta xasan sheekh maxamuud baa hadlay waqooyi bari uu soo qaaday xasan sheekh maxamuud baa hadlay Soomaaliland bida Soomaaliland habar jeclay habar awliya habar Yunus baan anigu aqaana waxaasna anigu ma ahi war yaa laba qabiil oo wiili abtigiisa anigu aan kala xishoon hadaa wanaag wax ku leedahay wi fariinta u dambaysan ku soo diray wallahi cadiim tii u dambaysay baan ku soo dirayay afkaaga aniga edabiga yeelo waa diiday Soomaaliland la marxanti ka ahaada Netanyahu inaan ulkaaga reeb ulkaaga dajiyo ballan wey ana ku afgaranayo Soomaali cid kale oo ku afgaranaysa ma jirto hadaa laba qoriyo jaal afka saartid bisaacad anaga ka fariisanaysa xasan maxamuud baa hadlay waqooyi buu ka hadlay daan waqooyi ma ahi nabiga maxamed ku sallay anu waqooyi bari Soomaaliya la dhaha SSC baana waxaan ahay khaatumaan ah gobolada Soomaaliya sanaag iyo cayn baana nin Soomaaliyeed baana weligay meel Soomaali lagu kala goynayeen anigu ma saxiixin mana tagin tagala tag adeer waalida salli ala sayyidina maxamed aniga beenta dadka u sheegayso aniga hay waxba orod EVC baad iska qaadalaada baasaboorkii Soomaaliya lagu sameeyaa magaalada Hargeysa lagu sameeyaa dadkaaga doqonnimada waxa ugu sheekay laakiin xasan sheekh sidaad u maagso irir Soomaaliya ma sidaad u maag beerka uga garac irir Soomaaliya idinka isla aniga hay gula soo galgalan khayr ilaahay ku siiye barnaamijkan inta kulmi doono